الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. إلهي سبحانه وتعالى kitaabkiisa xakiimka waxa uu ku tilmaamay inay jiraan dad camaladooda xunxunka inta loo qurxiyey haddana wanaag u arkaa. waa cudurkan ugu xun ee qofka bini'aadamka ku dhaca. adigoo inta xumaan galay wax ilaahay diiday ku dhaqaaqay haddana ku riyaaqsan oo ku faraxsanoo haddana wanaag u sii arkahaya. fara'aahu xasanan, wanaag uu arkaya buu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala. qof noocaa ah iyo qof xishooday oo taacada alle ku dadaalay oo diinta islaam ka qaatay oo wixii xun ka fogaaday wixii fiicanna sameeyey isku mid miya? jawaabtu maya ayay markaa noqonaysaa sariigtu. ama xishoodku waa shay qaali ah oo weyn oo ilaahay uu ku manaysto addoonkuu markaa jecel yahay. xishoodku waa qayb weyn oo iimaanka ka mid ah. sidaa darteed ayaa ummaddan waxa ugu horeeya ee laga siibi doonoo laga qaadi doono xishoodkuu markaa noqonayaa. waxaan u jeednaa dumar fara badan oo aan xishoonayn, dhallinyaro fara badan oo xishoodkii ka zuulay, odayaal aan sariiganaynin. carruurta gobol ka mida inay xishoodka iyo sariigta ka tagaan waa wax maanta bulshada iyo mujtamaca ku badan. waa wax maanta noo noqday dhaqan iyo suluug. sariig daradu maanta waa lagu faantamaa, xishood la'aanta maanta waa lagu faantamaa. ilaahay subxaana wa tacaalaana kitaabkiisa xakiimkaa in badan ayuu ku tilmaamay inay imaddu sariigtaan, in xishoodka lagu dadaalo. rasuulku wax badan ayuu fadaa'il badan ku sheegay, wuxuuna ummadda uga digay xishoodka inay ka tagaan, wuxuuna wax badan amray inay sariigta ku dadaalaan. walaalayaal, xishoodka aan dib u soo celino. mujtamaca maanta waan u jeednaa heerka uu ka taagan yahay sariigta. waan u jeednaa maanta meeshaan ku noolnahay meesha laga taagan yahay xishoodka. waxaan wax badan arkaynaa ummaddu inay sariigtii ka tageen. ka bilow masaajidka markaad ka baxdo ilaa reerkaagii gurigaaga aad tagto boqolaal xishood la'aan baad la kulmaysaa. waxaad la kulmaysaa dhaqan sayi oo aad iyo aad u xun. waxaad la kulmaysaa arrimooyin aan wanaagsanayn. dhallinyaradii ayaad arkaysaa bulshada iyo suuqa dhexdiisa wax allaala waxay doonaan inay ku sameeyaan. nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi ambiyadii hore waxyaabaha laga soo guuriyey oo laga keenay waxaa ka mid ahaa war qof yahow haddaadan xishood lahayn, oodan rabbi ka xishoonayn, oodan malaa'igta ka sariiganayn, oodan bini'aadamka ka xishoonaynin, fasnac maa shi'ta, waxaad doonta sameey. wax allaala waxaad doonta sameey marka la leeyahay ma aha in raalli looga yahay, ma aha in la faray inuu wuxuu doono sameeyo. laakiin haddaadanba sariig lahayn, war haddaadan xishood lahayn, war haddaad tahay qofaan qiimo lahayn oo aan sariiganayn, wax allaala waxaad doonta sameey ayuu yidhi rasuulka sal allahu calayh wasalam. wixii nebiyadii hore laga soo minguuriyey ka mid tahay. aan aad iyo aad u dadaalno walaalayaal, aan noqono